السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز الهدى كعشرة نتحمل حلقات كمية من الأركان الفلوس والبطولة عشر كيني خارج la socoteen waxaan installation ku sameynay PDM haddana waxaan maaragtay ku sameyno isku xirka clientiga iyo PDM-ka inuu connectionkiisu maaragtay isku xirka connectionkaan sameynaya hadii la yiraahdo waxaad kala ku siinaysaa star waxaad tegaysaa control panel network connections create a new connection next ayaa leedahay waxaan doonaynaa qaybtan inaan ka doorano oo ah connected to the network at my workspace select kaasoo dooranaysaa next ayaa leedahay waxaad ka dooranaysaa VPN virtual private network connection ayaad ka dooranaysaa next ayaad leedahay halkan waxaan gelinaynaa sidaad hoos ku aragtaanba serverka magaciisa ayaan gelinaynaa marka serverka magaciisa markaad geliso waxaad next ayaad leedahay halkan IP addresska ayaan gelinaynaa oo serverka 192.168.211.142 next ayaad leedahay halkan waxaan ka dooranaynaa desktop ayaan saaraynaa hadii la yiraahdo finish ayaad leedahay okay markuu kuu soo baxo qaybta windowga kale kuu soo baxo waxaad sameynaysaa usernamekii ayaad gelinaysaa usernameka iyo password okay ciladan markay ka hor imaato ciladan oo kaleeto waxaad sameynaysaa serverka ayaad tegaysaa serverka markaad tagto waxaad tegaysaa tools waxaad tegaysaa active directory users and computers ayaad kala ku siinaysaa userka ayaad dul tegaysaa right click ayaad ku leedahay properties ayaad leedahay waana soo ogolaanaa dial in kadib waa inaan nidhahnaa allow access apply okay ayaad ku leedahay okay dib ayaad ugu laabanaysaa connectionka waa arkaysaan wax yar ayaa u haray waa arkaysaan si toos ayuu ugu xidhnay now is connected toos ayuu hadda ugu xidhnay marka casharkan wuxuu daba socday casharkeenii hore dabcan ahaay habka loogu install gareeyo VPN-ka marka casharkeenu halkaas ayuu noogu egyahay waa markale low dhaaf. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.